السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ina baray inoo sheegay ducadaas runtii wax waliba ay kulmisay qofku waxa fiican oo kaliya inuu barto oo ku celceliyo ducadaas wax ka dhiman ma jirto waxa uun ka harsan tahay waxay tahay inuu qofka oo barto oo ku celceliyo ay noloshiisa caado ay u noqoto rabbi caza wajal mar un baa uu ka aqbalaya insha Allah ducadaas waxay tahay rabbana atina fi dunya xasana wa fil aakhirati xasanatan wa qina cadaaban naar waxaa leedahay rabbana aatina fi dunya xasana wax walba oo adduunyo oo wanaag ah aad rabtid rabbi caza wajal ayaad weydiinsanaysaa bilcagsigeed wax walba oo xumaan ah rabbi caza wajal wuu kaa reebay leana adiga waxaa codsatay wanaag ayaa codsatay waxyaalo fiican ayaad codsatay wa fil aakhirati xasanatan wa qina cadaaban naar waa duca aad u qurux badan naarta waad ka rabbi caza wajal ayaad waxaad weydiistay inuu kaa fogeey sidoo kale aakhira inuu wax wanaag oo ku siiyo waa duca aad u qurux badan qofku waxaa fiican in caado u noqoto oo mar walba ku celceliyo hal ducadaas sidoo kale kuma xirno inaad taqaanid af carabi ama haddaad taqaanidba leanna waa duco fudud oo qofka wax walba oo khayr uu u baahan yahay oo rabbi caza wajal weydiisan lahaa way kulmisay qofka marka waxaa fiican inuu xifdiyo oo barto dadkan u sheego dad ayaa waxaa jira ducooyinka ay ku adag tahay ee xooga dheer tahay ama af carabi aqoonin inuu xifdiyo ayaa dhici karta laakiin ducadan labadaba way kaa baabi'inaysaa leanna waa duco fudud sidoo kale waad awooda inaad xifdisid kuma xirna af carabi inaad taqaanin in kale qof walba ayaa xifdin kara rabbina caza wajal waxaad weydiisatay khayr oo dhan ayaad weydiisatay ducadan waxay ku taala qur'aanka iyo sunnadana way ku taala rabbi caza wajal wuxuu leeyahay min annaasi man yaqulu rabbana aatina fi dunya adduunya kaliya ayuu weydiisanaya wamaa lahu fi laakhirati min qalaq dadkaas nasiibku ma laha aakhira laan adduunya markii la joogo adduunya ayuu weydiisanayay qofka mu'minanta taas looma baahna waxaa loo baahan yahay adduunya iyo aakhiraba inuu weydiisto marka qofka mu'minkan waxaa loo baahan yahay adduun iyo aakhiraba inuu weydiisto rabbina caza wajal wuxuu leeyahay waa kooxda labaad adduunyada iyo aakhiraba ay weydiisanayaan ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب عز وجل wuxuu leeyahay أولئك لهم نصيب مما كسبوا dadkaas ayaa wanaagsan oo khayr oo dhan isku helay oo nasiibka heleen ayuu rabbi caza wajal leeyahay marka Anas radiyallahu anhu nabiga sallallahu alayhi wasallam kabirnay ducadan wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam mar walba ayuu ducadan ku ducaysan jiray oo ku celcelin jiray ayuu leeyahay Anas radiyallahu anhu mar walba ayuu ku ducaysan jiray sidoo kale dadkan uu ducayn jiray markii noo ducay la dhaho wuxuu dhigi jiray rabbana atina fid dunya hasana fil aakhirati hasana laana waa duco wax walba ay kulmisay khayr oo dhan iyo aakhiro khayrkiisa dhan ay kulmisay weeyaan qofkana taas ayaa fiican oo dadkan inuu soo sii baro asigan inuu barto oo ku celiyo mar walba taas aan ku dadaan barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh